miyaad rumaysan kartaa in magaaladan aad maanta arkayso oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu hodansan ugu ammaanka badan uguna casrisan adduunka ay 60 sano ka hor ahayd jasiirad sabool ah oo faqri iyo tugnimo haraysay biyaha cabitaanka ahna ay wadamo kale u soo dhoofin jireen Agoosto 9keedii 1965 nin la yiraahdo Lee Kuan Yew ayaa hor fadhiistay kamaradaha warbaahinta adduunka indhihiisa waxa ka qubanayay ilmo. I had believed in Malaysian merger. Sababtuna waxay ahayd wadankii xulafada la ahaa ee Malaysia ayaa si bareer ah xiriirka ugu jaray Singapore iyagoo ku yiri laga bilaabo maanta kaligiin ayaa tihiin ee nagala baxa dhibkiina. Waqtiga Singapore ma lahayn petrol, macdan iyo dhul beereed, xitaa ma lahayn biyo nadiif ah oo ay dadku cabaan. Dhammaan khabiirada dhaqaalaha adduunka iyo siyaasiyiintuba waxay saadaaliyeen in jasiiradani ay u burburi doonto gaajo, dagaal sokeeye iyo maamul xumo. Laakiin maxaa dhacay kadib? Sidee ayay jasiiradan yar ee badkeedu yahay 728 kilomitir oo laba jibaaran oo kaliya isugu bedeshay xarunta maaliyadda adduunka waliba tan ugu xooga badan? Maxayna ahayd xeeladii loo adeegsaday oo ay wadamada kale ka baran karaan? Sheekadan waa mid buuxda oo muujinaysa sida go'aanka gaarista adag, aragtida fog iyo hoggaan aan la musuqmaasuqi karin ay dib u dhis ku sameyn karaan wadan dhan. Marka ay Malaysia xiriirka u jartay Singapore, go'aankii ugu horeeyay ee Lee Kuan Yew qaatay ma ahayn in uu lacag raadiyo ama wadamada kale uu caawimaad weydiisto. Wuxuu qaatay go'aan aad u khatar badan oo dadka badankiisu u arkayeen isdil ama ismiidaamin siyaasadeed. Haddaba muxuu ahaa go'aankaas naxdinta lahaa ee badbaadiyay jasiiradda? Intaynan bilaabin sheekada cajiibka ah, nagu soo biir saaxiib. haddaad hore noola jeegtana like sar muuqaalka aynu ku salino xabiibkeeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Markii Singapore xiriirka loo jaray, dhibaatada ugu horeysay hortaalay waxay ahayd mid fudud laakiin cabsi leh. Sidee loo noolaanayaa maanta ilaa bari Allah nolol geeri haye? Singapore waxay ahayd jasiirad yar oo dadkeedu ku dhawaanayaan 2 milyan oo qof. badankood dadku waxay ahaayeen qaxooti ka kala yimid China, India iyo qowmiyadda Malayga. Dadku ma lahayn luqad ay wadaagaan oo ay ku wada xiriiraan, mana jirin qowmiyad israacsan oo waxaa ka dhex jiray dagaalo qowmiyadeed iyo kuwa diimeed oo dhiig badan ku daatay. Wadooyinka waxaa maamulayay Mooryaan iyo kooxo burcad ah. Maamulka dawladdan wuxuu ahaa mid bila awood ah. Heerka shaqo la'aantana wuxuu marayay ilaa 14%. Lee Kuan Yew oo ahaa ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu gartay hal qodob oo muhiim ah. Singapore ma lahayn kheyraad dhulka hoostiisa ku jira oo la iibiyo, laakiin waxay lahayd hal hanti oo ka qaalisan petroolka iyo wax kastaba. Meesha ay ku taalay oo ah marinka ganacsiga badda ee Strait of Malacca, halkaas oo ay maraan maraakiibta iskaga goosha bariga dhexe, Aasiya iyo galbeedka. Si uu hantadaas unuga ah uga faa'iideysto, Lee wuxuu qaatay 2 go'aan oo waali ah oo dad badani waqtigaas kula taliyeen inuu ka laabto. Go'aanka koowaadna wuxuu ahaa luqadda Af-Ingiriisiga ah oo loo qaatay luqadda rasmiga ah ee waxbarashada iyo maamulka. Xilli wadamada Aasiya oo dhan ay ka cararayeen luqadihii gumaysiga oo ay kor u qaadayeen luqadooda hooyo, Singapore waxay Ingiriiska ka dhigatay luqadeeda koowaad. Tanina waxay lahayd 2 sababood: in la dhexdhexaadiyo qowmiyadaha Shiinaha, India iyo Malayga si aan hal kooxna looga roonaan, iyo in shirkadaha reer galbeedku markay dalka yimaadaan ay helaan shaqaale yaqaan ah ku hadalka luqadda Af-Ingiriisiga. Go'aanka labaadna wuxuu ahaa dhaqangelinta maamulka reeban musuqmaasuqa. Wuxuu dhisay hay'ad la yiraahdo CPIB. Shaqaalaha dawladda waxaa la siiyay mushaar aad u sareeya oo la mid ah kan ay bixiyaan shirkadaha gaarka ah, laakiin qofkii lagu qabto shilimaad musuqmaasuq ah wuxuu waayayaa shaqadiisa, xorriyadiisa iyo mustaqbalkiisaba. Laakiin go'aanadan oo kaliya ma ahayn kuwa ku filan. Waxaa jiray dhibaatadii ugu weyneed. Shirkadaha reer galbeedku ma go'aansan doonaan in ay maalgashi ku sameeyaan wadan aan lahayn goobo aan dhisnayn, aan lahayn shaqaale xirfad leh oo laga helayo dhammaan gobolada oo dhan. Sida ay Singapore u soo jeedatay shirkadaha ugu waaweyn dunida xilli wadamada dariska ah ay nacayb u muujiyeen reer galbeedka. Sanadii 1970kii, inta badan wadamada soo karaya ee Aasiya iyo Afrika waxay lahaayeen dareem nacayb ah oo ka dhan ah shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka, iyagoo u arkayay nooc cusub oo gumaysi ah.
laakiin Singapore waxay samaysay go'aan gabi ahaanba ka soo horjeeda taas. Lee wuxuu shaqsi ahaan u aaday Mareykanka iyo Yurub, wuxuu hor fadhiistay madaxa shirkadaha tiknoolajiyadda sida Texas Instruments, HP iyo General Electric. wuxuuna ku yiri ka dhista warshadihiina Singapore waxa idinka qaadi doonaa canshuur aad u yar, waxaad heli doontaan maamul bilaa musuqmaasuq ah iyo shaqaale aad u tababaran. go'aankaas wuxuu noqday mid miro dhal ah oo taariikhda bedelay. magaalada waxaa ka bilaabmay dhismaha warshadaha waaweyn ee microchipska iyo qalabka elektarooniga ah. shaqaalihii Singapore ee bilaa shaqada ahaa ayaa helay xirfado cusub oo casri ah. dekadii Singapore-na waxay noqotay mid ka mid ah dekadaha ugu mashquulka badan uguna casrisan adduunka. laakiin xilli uu dhaqaaluhu bilowday inuu koro, waxaa soo baxday dhibaatadii labaad oo khatar ku ahayd horumarka dalka. dadku meel ay degaan ma lahayn. 2 milyan ee dadka ahna waxay ku noolaayeen guryo cooshado ah oo kulayl ah, ammaan la'aan ah, oo cudurradu ka dilaaci karaan. halkaa waxaa ka bilowday barnaamijka guriyeynta ee HDB, Housing and Development Board. dawladdu waxay dhistay guryo dhaadheer oo casri ah, waxayna dejisay sharci ah in dadka midab kasta ha lahaadee ama qowmiyad kasta ay ku wada noolaadaan hal dhisme si looga baxo kala qaybsanaanta qowmiyadaha. maanta in ka badan 80% dadka Singapore waxay ku nool yihiin guryaha ay dawladdu u dhistay oo iyagu ay leeyihiin. dhaqaalihii wuu koray, dadkiina guryo ayay heleen. laakiin Lee Kuan Yew wuxuu ogaaday wax kale oo halis ah. warshadaha yaryar ee wax soo saarka ah ee ku dhisnaa shaqaalaha raqiiska ah waxay u wareegi karaan wadamada kale ee Asia sida China iyo Vietnam markay shaqaalaha Singapore mushaar sare dalbadaan. si wadanka uga mid noqdo xarumaha waaweyn ee dunida waxay ahayd inuu la wareego maaliyadda iyo tiknoolajiyadda sare. laakiin sidee ayay jasiirad yar oo Aasiya ku taala uga mid noqotay inay noqoto xarunta maaliyadda dunida iyadoo laga cabsado shuruucda adag ee uu hogaamiyahoodu soo saaray? sanadihii 1980 iyo 1990 Singapore waxay isku bedeshay xarun warshadeed iyo xarunta maaliyadda ee Aasiya. bangiyada waaweyn dunida sida Citibank, HSBC iyo UBS ayaa xafiisyo waaweyn ka samaystay halkaas. cabirka dhaqaalaha ama GDP-ga ee Singapore wuxuu bilowday inuu cirka isku shareero isagoo ka hormaray ku dhawaad dhammaan wadamada dariska ah iyo kuwa badan oo Yurub ka mid ah. laakiin horumarkan dhaqaale wuxuu leeyahay dhinaca kale oo taariikhda galay. nidaamka maamul ee adag iyo shuruucda caan ka noqotay adduunka. Lee Kuan Yew wuxuu rumaysnaa in kala dambeynta, nadaafadda iyo nabadgelyadu ay yihiin furaha koowaad ee soo jiidashada maalgashiga. wuxuu soo saaray shuruuc adag oo adduunka oo dhan ay la yaabeen. tan koowaad waxay ahayd waxaa la mamnuucay iibinta cuntooyinka baakadaysan si aysan warqadahaas iyo qashinkaas waddooyinka loogu tuurin. tan labaad oo ah qashin ku daadista waddadu waxay leedahay ganax lacageed oo aad u sareeya. tan saddexaadna waxay ahayd dambiyada mukhaadaraadka iyo daroogooyinka waxaa lagu ciqaabaa daldalaad toos ah iyadoo la adeegsanayo halbeega zero tolerance kaasoo ah xeer ama siyaasad aan lagu dulqaadanayn qofka ku kaca fal gaar ah xitaa haddii uu yaryahay. tani waxay Singapore ka dhigtay mid ka mid ah magaalooyinka ugu ammaanka, nadaafadda iyo ugu kala dambeynta badan adduunka. laakiin reer galbeedku waxay ku eedeeyeen Lee Kuan Yew inuu yahay dictator ama keligii taliye ku takrifala xorriyadda dadkiisa. warbaahinta galbeedku waxay Singapore ku dhihi jireen Disneyland with the teeth penalty, taasoo ah dal qurux badan, casri ah, nadiif ah, ammaan ah, laakiin ay ka jiraan sharciyo adag oo ay ku jiraan ciqaabta dilka ah ama daldalaadda. haddaba maxay ahayd jawaabtii kululeyd ee Lee uu ka bixiyey eedeymahaas oo badbaadisay mustaqbalka dalka? markii lagu eedeeyay inuu xorriyadda shakhsiga la dagaalamayo oo uu ku tumanayo xuquuqda aadanaha, Lee Kuan Yew wuxuu bixiyay jawaab aad u adag oo caan noqotay. wuxuu yiri waxaan u baahanahay inaan dadkayga ka dhigo kuwa nool, waxbarta, shaqaysta oo guryo degan. xorriyad aan lahayn nidaam iyo kala dambeynna waa fawdo. xuquuqda ugu horeysa ee aadanaha waa inuu helo nabadgelyo, shaqo iyo biyo nadiif ah. natiijadan waxay noqotay mid aan la dafari karin oo taariikhdu qortay. dhaqaalaha mutakallimka ah markii ay madax banaanida heleen 1965 GDP per capita ama dhaqaalaha uu helayo qofkiiba wuxuu ahaa $600. maanta wuxuu ka badan yahay $90,000 isagoo ka sareeya Mareykanka, UK, Japan iyo Germany. nidaamka waxbarashada Singapore
wuxuu saf kaga jiraa kuwa ugu sareeya dunida iyadoo ardaydu ay ka galaan kaalmaha koowaad ee imtixaanka caalamiga ah ee PISA. sidoo kale garoonka diyaaradaha ee Changi waxaa sanad kasta loo doortaa garoonka ugu wanaagsan dunida sababtoo ah adeegiisa iyo naqshadiisa cajiibka ah. guri kasta oo Singapore ku yaala maanta wuxuu leeyahay biyo nadiif ah, koronto aan go'ayn, iyo nabadgelyo heer sare ah, heer ay gaarsiisan tahay in xitaa ilmaha yar uu kaligiis wadada mari karo saqdi dhexe ama habeenbarkii. Jasiiradii la ceyriyay 1965 waxay noqotay calaamadda mucjisada dhaqaalaha ee qarnigii 20aad. laakiin maanta xilli uu Lee Kuan Yew geeriyooday sanadii 2015 Singapore waxay hortaalay dhibaato cusub oo khatar ku ah mustaqbalkeeda si loo baahiyo ganacsiga xilli ay isku dhaceen labada superpowers ee USA iyo China. miyay Singapore sii ahaan doontaa mucjisada dhaqaalaha ee adduunka mise casharkeedii wuxuu ku hari doonaa taariikhda oo kaliya? ugu dambeyntii mucjisada Singapore waxay inoo muujinaysaa hal cashar oo weyn oo ka sareeya dhammaan casharada kale. xajmiga wadanka ama kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira ma go'aamiyaan guusha ama fashilka wadanka ee waxaa go'aamiya saddex waxyaabood. tan koowaad oo ah hoggaan hufan oo leh aragti fog, diyaar u ah inuu go'aano adag qaato. tan labaad oo ah maamul buuxa oo aan lahayn musuqmaasuq, halkaas oo sharcigu ka sareeyo qof kasta. tan saddexaad oo ah dhisidda iyo maalgashiga hantida ugu muhiimsan ee uu wadan leeyahay awoodda iyo caqliga iyo xirfadda dadkiisa. sida oo Lee Kuan Yew uu mar yiri, haddii aad leedahay maamul wanaagsan iyo dad tababaran, xitaa ciidda yar waxay noqon kartaa dahab. haddaba daawade, miyaad u malaynaysaa in nidaamkan adag ee Singapore uu ka shaqayn karo wadamada kale ee Asia, Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, mise xorriyadda buuxda ayaa ka muhiimsan horumarka dhaqaalaha? waxaad ra'yigaaga nagula wadaagi kartaa qaybta commentiga. haddii aad ka heshay muuqaalkan cajiibka ah meesha aad joogto waa channelkaagii ee fadlan like sar muuqaalka, subscribe-na noo dheh si aad u hesho taariikho kale oo cajiib ah. mahadsanid.